بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هذا السكالة مر والبا يا حالة والبا كجرو إلهي ما تيجي سكدب ما أنتوا تاريخ وطاي سجالي توان كاب بالشا صدحات مارسو اللي بعنادا دولات كجوبالين ويفرستين فردقاس وجيت كيسوها لابا قضب oo dastuurka Jubbaland kamida oo dhigay qodobka 40 iyo afaraad oo dhahay dawladda Jubbaland waa madaxweyne iyo hal madaxweyne ku xigeen iyo wasiiro qodobkaas فقرة كميدة أوله سي مدحوين كحجين ك هل جبلان وحيلان يسا هل مدحوين كحجين وكلية ودكتين جبلان وحكو جبت دبوشيسين مركزي بيلها الصوماليات مسؤولية جبلان يسكاد حركان أما أود غيب سيجا سامي أود غيب سيجا لا صومالية يا وحال إسلاك قرتي قضب كأسجع هاي ولا إيه جايو أصل حد ومضى جبلين إيوه نبت قوة نولا شهادة إيوه كالسوني ده يا وحي برلمان كقوان سدين ما دام أي وكيل كيهين بالشدة الدستور كان أيجي وكيشان قضب كأسجعها إن لله له ماشي أي هيد هل مدحين كحجين laga dhigo laba madaxweyne ku xigeen marka qodobkii asaga fadhigi waxa soo xaadiray tirada baarlamaanka Jubbaland hadda inta shaqeyso waa 75 xubnood waxa fadhiday 66 58 baa waxay u codeysay oo aqbal ah in qodobka la furo oo uu noqdo laba madaxweyne ku xigeen ay yeelato maanta oo taariikhdu ay tahay 19 bisha Maarso marka qodobkii asaga sidaas lagu laalay waxa kale oo asagana labeeyay qodobka 40 iyo shanaad oo asagana dhahay Jubbaland waxay yeelanaysaa 15 wasiir oo kaliya marka tii ay ahaydna xilbaanada ayagoo mas'alada eegayo iskama dhihina qodobka iskama imaanin madaxweynaha ayaa wuxuu codsaday oo baarlamaanka ka codsaday in labada qodob la furo si uu xukuumaddu soo dhiso oo ummadan u walaaleeyo ummadan ay iska dhax aragto Jubbaland mas'uuliyadeeda qodobkii asaga oo dhahay Jubbaland waxay yeelanaysaa 15 wasiir oo kaliya asigina waa la furay waxa la yiri wasiiro intay doonto ha noqoto oo madaxweynaha iyadan ikhtiyaar loo siiyay ama 15 ha ka dhigto ama 20 ha ka dhigto ama ha ka yareeyo 10 ba ha ka dhigto marka xayiraadii baa iyadana laga qaaday sidii salimid ayadana waxa uu codeysay 58 todobana way diiday halna waa ka aamustay marka labadaas qodob sidaas ayaa lagu furay halkii dhahaysay 15 iyo hal madaxweyne ku xigeen waa laalan yihiin maanta oo ay taariikhdu laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha saddexaad 2016 marka labadii qodob sidaas ay ansax ku yihiin Jubbaland marka xilwaanada dawlad goboleedka Jubbaland aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in ay ka fikiraan ay ka hormariyaan mar walba danta khaaska danta ummadda iyo sida ay ummadda Jubbaland u walaaloobi lahayd isugu xirmi lahayd cid wax tabanaysa loo qancin lahaa sida ay ugu heelan yihiin ayagana waan ugu mahad celinayaa dadweynaha Jubbaland waxaan ayagana u sheegayaa ayaga ayaa
dastuur kan u codeeyay irgooyin laga keenay saddexda gobol oo tiradooda ay gaarayso 300 ba ansixisay waxayna ku wareejiyeen golaha shacabka Jubbaland oo anu hadda gudoomiye waxay gudoomiyahankayga labaadna uu ag fadhiyo iyo xildhibaanadii ay doorteen marka xildhibaanadii iyagoo matalaya ummadda Jubbaland sidaas ay u garteen waxaan iyagana mar labaad ka codsanaynaa in ay sida ugu raacaan maadaama ay u wakiisheen oo ay waajibaadka xildhibaanada Jubbaland ay tahay wax alla wixii maslaxada ummadda Jubbaland ka hor imaanaya in ay xal u helaan ummadooda mar walba ay mas'uuliyadooda qaataan ay ka fikiraan marka shacabkan waxaan u sheegaynaa sidaas ogeysiintiisaan siinaynaa waxaana ka codsanaynaa in ay ayidaan maslaxada ummadda ummadii ay dadkii ay wakiisheen ay go'aansadeen ayagana in ay la qaataan madaxweynahan waxaan isagana mar labaad asagana u sheegaynaa ama aan ka codsanaynaa maadaama wixii hortaagnaa dib u heshiisiintina ay dhammaatay qodobkii dib u heshiisiinta ka mid ahaa oo asagana xanibaada ku ahaa ay baarlamaanka ka qaadeen muddadiina ay gabagabo ku dhowdahay madaxweynaha asagana waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah xukuumaddii u soo dhiso una horkeeno baarlamaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin